بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة والله لها طريقة خير كجعل دمانتي ولا ليوان السلام يا ملك سو عالم كي قل سعتان إله الرحمن كرحيم كيا مهد اسكله مركل اسكو كان سعليي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله دائما وابدا. الحمد لله، الشكر لله، الحمد لله على كل حال. الحمد لله دائما وابدا. سود وهذا ولا له بالغ خير كجعل dhammaantii walaaliya waan isalaamayaa. soo dhawaada. maanta waxaa wadaa fadliga ay leedahay maalinta carafo, sidoo kale maalinta markay mustajaabo ducaaga tahay, waqtiga ay ku beegan tahay. sidoo kale walaaliyaal, qisas laga arkay maalinta carafo ee qiimaha badan leh. walaalo ducaystay ilaahay subxaana watacaala ijaabadii uu siiyey. soo dhawaada walaaliyaal, ka faa'iidaysta. lig far badanna ii saara si walaalo badan u gaaro oo uga faa'iidaysta maalinta qiimaha badan oo dhammaanteen walaaliyaal aan nimcada iyo ijaabada u wada helno. maasha allah walaalaha qaaliga ah, soo dhawaada. fadliga walaalayaal maalinta carafo leedahay oo ugu weyn waxa weeye maalmihii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhaartay ee 10 bisha dilxija u horeeya maalin ka mid ah weeye. ilaah raxmaanka raxiimka wuxuu ku dhaartana waa wax weyn walaalaha qaaliga ah. sidoo kale walaalayaal, maalinta carafo soomkeeda waxaa kamid ah fadaaisha ay leedahay. soomkeeda 2 sano ayaa lagu dhaafaa. النبي عليه الصلاة والسلام حديث كسوها النبي وحي إلى صيام يوم العرفة ما ننت عرفة صوم كذا احتسب على الله وكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده. واحد كحساب سنة سامان انت قيام ودومضة كحساب سنيان إن إلهي أغلافة سنة كصوص عضة يا سنة كتهجي. فضايش أي لا ذا ما ننت عرفة وحكم ذا ولا لي وما ننت دينتنا المعان أي تام نقطي ونمع ذا وين إلهي سبحانه وتعالى نسيه أي لما يسترمتي ولا لها خالقة. maalinta carafo walaalayaal waa maalin ilaahay dunuubta dadka u dhaafayo, ilaahay subxaana watacaala naaraha ka xoreynayo. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ka sugan, nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam: maa min yowmin akthar min an yactiqa allahu fiihi cabdan min annaar min yowmi alcarafa. ma jirto maalin ka badan oo ilaahay subxana wataala addoomihiisa naaraha ka xoreeyo maalinta carafo walaalaha qaaliga. maalinta carafo walaalayaal, fadliga ay leedahay ugu qiimaha badan waxa weeye ilaaha raxmaanka ee raxiimka maalintuu soo degaya weeye, oo ilaahay subxana wataala addoomihiisa carafo taagan uu ugu faanayo malaa'igta walaalayaal. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ibnu cumar ka warinayo ana nabiy sal allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yidhaahday: qaala wuxuu nabigu ina allaha tacaala ilaahay subxaana watacaala yubaahi lmalaa'ika عشية العرفة. ما ننت عرفة وقفانا يا ملائكة بأهل العرفة دتك عرفة تاجن. انظروا إليها إلهي فيرية إلى عبادي أدومها هي فيرية عرفة أي تاجيهين أيجو اسكوكي بهنيا أي عرفة تاجيهين بولهي سبحانه وتعالى وقفانا يا أدومي سولا لها قارئة. ما ننت سولا لها العظيم كا إله الرحمن كا الرحيم كا يا سودة ولا لها قارئة. علماء وحيرة هذا ولا ليال fadliga maalinta carafo iyo habeenka laylatul qadriga. culimada waxay yiraahdaan walaalaha qaale waxa fadli badan maalinta carafo, waayo maalinta carafo ilaahay baa soo degaya. habeenka laylatul qadrina malaa'igta ayaa soo degaysa walaalaha qaale. habeenka laylatul qadriga waana la ka qariyo oo tiro isdheer ayuu ku jiraa. maalinta carafana waa maalin la og yahay oo loo taagan yahay cibaado. dadka carafo taagan cibaado ayay u taagan yihiin walaalayaal. soonka maalinta maxay sheegay xajul carafa ayuu dhahay nabiga calayhi salaam. waa maalinta carafo way xajka ugu weyn kaas weeye walaalaha qaaliga ah. rukniga ugu weyn oo carafadaas la taagan yahay weeye walaalaha qaaliga. marka walaalaha qaaliga ah, maalintaasi waa maalin duco fadliga ay leedahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu khayru ducaa ducaau yowm alcarafa. ducatan ugu khayr badan waa ducada maalinta carafa la ducaysta walaalaha qaaliga. salafkii ummadeena dadkii wanaagsana way sugi jireen. waxay dhaheen waxaan u arki jirnay kal barqi sida dayxii oo kale ayaa u arki jirnay ducada maalinta carafa aan ducaysano walaalaha qaaliga. maalinta carafo dikri ay la akhristo ayuu noo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam. oo nabigu wuxuu yidhi aniga iyo nebiyada iga horreeyaba maalinta carafo waxaan dhihi jirnay dikriga tawxiidka: laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. walaalaha qaaliga ah, maalinta waa maalin duco, waa maalin dikri, waa maalin ilaaha raxmaanka raxiimka uu soo degayo. marka maasha allah walaalaha qaaliga, naftayda iyo naftiina waxaan ku boorinaynaa maalinta qiimaha badan ku boorinaya walaalayaal. maalinta qiimaha badan inaan ka faa'iidaysano oo nolosheena ku dabaqno. maasha allah waxaa sidoo kale wadaa qisas dhiirigelin. قصص ولا وقد يشوى ديرجلين ما شاء الله تبارك الرحمن. ولا لها سيد الله سبحانه وتعالى أجيبي وقفة إذا يستن معني تعرف يا أركيسان. قصة ولا ريال ويل باك شيكي ويل كان وحيد هذا الشقوبان كشقين شربون هاي
waan wadi waayay buu dhahay shaqadii waan xanuunsanaa buu dhahay caajis ayaan dareemaya caro dadkii wuxuu yidhahda hadalkooda wuu dhibayay dadkii waa la heshii waayey waxaan wuxuu yidhahda usoo cararaya guriga inaa iska jiifo caajis badan ayaa dareemay buu dhahay shaqadiina waan wadi waayay buu dhahay sanad baa wuxuu dhahay arrinkaas i haystay buu dhahay nimankii shaqada way soo wacayaan waxay dhahayaan walaalo dhegayso shaqadan si toosa u wado ama isaga tag ayayna dhahayaan hadalkaas ugu idhibay buu dhahay shaqadayda waa u baahnaa haddana wuxuu dhahay waan xanuunsanahay uma wadi karuu dhaha waxaan go'aansaday in ilaahay subxaana watacaala xaggiisa aanu cararo bishii dilxija ayaa soo gashay buu dhahay waxaan go'aansaday inaan 10 beri bisha dilxija u horeysa inaan soomo waxaan damcay buu dhahay inaan qur'aanka akhriyo markaan soomkii bilaabay buu dhahay waa isku wadi waayey buu dhahay soomkii iyo qur'aanka waayo xanuun saa'id ayaan dareemayay buu dhahay alxamdulilah waan waday buu dhahay horta soomkii waa dhammaystiray buu dhahay wuxuu dhahay maalintii carafa ayaa la gaaray buu dhahay alxamdulilah maalintii carafa masaajidka ayaan galay buu dhahay ilaahay ayaan baryay buu dhahay aad iyo aad ayaa ilaahay ugu ooyey wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanay waxaa kamid ilaahayow xanuunka iga dulqaada dhibaatada ay haysata adaa garanaya ilaahow shaqadaydii wuxuu dhahay igu celi ilaahow nolosheeda ii fududee runtii wuxuu dhahay aad baa u ducaystay buu dhahay maalinkii carafo waxaana badiyey buu dhahay dikriga tawxiidka ayaan aad u badiyey buu dhahay wuxuu dhahay alxamdulilah habeenkii carafo maalintii habeenkeedii waxaan ku riyooday buu dhahay islaan weyn oo cajuusa oo guri oo qolkaygii weliba ka baxaysa buu dhahay aniga aan deganaa alxamdulilah caatiskii wuu iga dulqaadmay buu dhahay caatiskii ilaahay uu iga daweeyey buu dhahay markii shaqadii lagu soo laabtayna wuxuu dhahay shaqadii ayaan ku laabtay buu dhahay alxamdulilah waxyaalaha ugu qiimaha badanna oo aan ku helay ducadii caraf waxaa kamid ah buu dhahay inuu ilaahay cibaadada ii fududeeyey salaadaha kumaana fiicneen buu dhahay inuu ilaahay salaadihii aan waqtigooda aan ku tukaday inuu ilaahay ii fududeeyey alxamdulilah waxba wuxuu yidhaahday hadda maasha allah dhibaatadii haysatay ilaahay wuu iga dulqaaday buu dhahay ducadii maalintii carafo qisadaasaan ka arkay buu yidhahda walaalayaal qisadan walaal iyadana wiil baa ka sheekeeyay wiilkan wuxuu yidhaahday maalinkii carafo waxaan arkay buu dhahay miidiyaha iyadoo laga sheekeynayo fadliga maalinta carafo waan dhegaysta buu dhahay waan ogaaday fadliga maalinta carafo anigu wuxuu yidhaahday xabsi ayaan ku jiray buu dhahay 10 sano weliba ayaan xirnaa buu dhahay qisaas ayaan u xirnaa qof aan dilay baa u xirnaa buu dhahay alxamdulilah markaa ogaaday fadliga maalinta carafo waxaan go'aansaday buu dhahay inaa ilaahay u tago ilahay waxba kuma cuslee in ilaahay maalinta carafo inuu ilaahay subxaana watacaala badbaadiyo wuxuu dhahay maalinka carafo ayaan ka faa'iidaystay waan ducaystay waan soomay maalinta carafo maalinkii oo dhan waa ducaysan ilaahay baan baryay buu dhahay inuu ilaahay subxaana watacaala jeelka iga saaro inuu ilaahay noloshayda ii badbaadiyo ilaahay subxaana watacaala wuu aqbalay buu dhahay jeelkii waa la iga sii daayay buu dhahay waana lay cafiyey 2 bilood kadib carafo ayaan xorriyadaydii helay ilaahayna subxaana watacaala ducadeydii ii aqbalay buu dhahay wiilkan qisadan walaalayaal gabar baa ka sheekaysay gabadha waxay tiri maalinkii carafo waxaan u duceeyey bay tiri reerkayaga waxaan ku jirnay bay tiri xaalad duruuf oo adag ayaan ku jirnay markii ilaahay subxaanahu watacaala waxay dhahday inuu ilaahay noo fududeeyo tiraahday dhibaatadan iyo duruuftaana naga saaro noloshana noo fududeeyo alxamdulilah ilaahay wuu ajiibay bay tiri maalinkii ciidda ee saddexaad waxay tiraahday ayaa faamilkaygu waxayna siiyeen bay tiri guri reerkayga faamilka ama dadka ehelkaan ka dhalanay iyo dhul ayayna siiyeen noloshaydii way isbedeshay maal badan baan helnay noloshii waxay tiri duruuftii ahayd ilaahay wuu naga dulqaaday wuuna noo nimceeyey ilaahay subxaana watacaala sidoo kale waxay tiri maalinkii carafo waxaa u duceeyey bay tiri walaalkay oo 18 sano reer lahaa oo awlaad aana dhalin inuu ilaahay subxaana awlaad siiyo alxamdulilah walaalkayna ilaahay awlaad buu ku irsaaqay bay tiri ducadii carafo qisooyinkaasaan ka arkay qisadan walaal iyadana gabar baa ka sheekaysay gabadha waxay tiraahday waan xanuunsanaa bay tiri xanuun waswaas fakar murug dhib ayay haystay bay tiri mar walba waan xanuunsanayaa bay tiri cunadii waxay tiri way yartahay cunada cunaya hurdadu waa igu yartahay bay tiri maalinkii carafo bay tiraahday ilaaha raxmaanka raxiimka ayaa u tegay inuu ijaabada ilaahay siiyo alxamdulilah ilaahay wuu i ajiibay bay tiri xanuunkii ilaahay subxaana wataala uga dulqaada waan ka fiicnaaday hurda ayaan helay bay tiri cunadii waan cunay bay tiraahday wax kaste way iga tageen bay tira oo dhibaato ay haysatay sidoo kale waxay tiri waxaan lahaa bay tiri uur baan lahaa bay tiri gabadhaan waxaan weydiistay maalintii carafo inuu ilaahay foosha ii fududeeyo foosha oo waxay tiraahday inuu ilaahay sidii biyo la cabaya iiga dhigo alxamdulilah ilaahayna way ajiibay bay tiri markaan dhalayay waxay tiri daqiiqado ayaan ku dhalay bay tiri xanuun la-aan alxamdulilah ilaahay ducooyinkii carafo qisooyinkaasaan ka arkay bay tiri gabadhaani qisadan ayadana walaaliya gabar baa ka sheekaysay gabadha waxay tiraahday maalinkii carafo aniga iyo saaxiibaday waxaan ku ducaysanay bay tiraahday mid walbe ninka ay sifaadkiisa ay rabto inay mustaqbalka guursato ayaan ku ducaysanay bay tiri inuu ilaahayna siiyo guurkiina inuu ilaahayna siiyo alxamdulilah carafadii markay dhammaatay waxay tiri waa nala soo doonay weliba waxay tiraahday labadayadiiba nimankii aan ku ducaysanay ayaan guursanay bay tiri
alxamdulilah ilaahay wuu noo aqbalay subxaanahu watacaala. qisadan ayadana waxay tira gabar baa ka sheekaysay walaalayaal, gabadha waxay tidhaahday gacan baa la iga hayn jiray bay tiri, xasaasiyad baa iga haysay bay tiri, gacanta daawo waan ka daalay bay tiri. maalinkii carafo ayaan ilaahay subxana wataala weydiistay inuu ilaahay subxaanahu watacaala i caafiyo. alxamdulilah waan caafimaaday, gacantiina ilaahay wuu ii buskeeyey, ducadiina ilaahay wuu ii aqbalay bay tiri gabadha maasha allah. qisadan walaaliyaal gabar baa iyadana ka sheekaysay. gabadha waxay tiri maalinkii carafo aniga iyo hooyaday ayaa isla soonnay, waana isla ducaysanay, aniga iyo hooyaday nolol adag ayaan kusoo kornay bay tiraahday. maalinkii carafo aan ducaysanay bay tiri, ilaahay xaalkaygii wuu bedelay bay tiri. waxaan samaynay bay tiri maalinkii carafo saliga nebiga iyo xawqalada iyo istikfaarta iyo taaju dikir ayaa maalinkii oo dhan wadnay bay tiraahday iyo ducada. alxamdulilah ilaaha raxmaanka ee raxiimkaana xaalkaygii wuu bedelay bay tiri. waxaan ka baxnay duruuftii. waxay tiraahday ilaahay subxaanahu watacaala wuu noo nibceeyay bay tiri, maantay barwaaqo ayaan ku jirnaa bay tiraahday. qisadan walaalayaal ayadana gabar baa ka sheekaysay. gabadha waxay tiraahday gabar aan daris ahayn ayaa noo imaatay bay tiri maalin, walaashay iga weyn ayay la sheekaysanaysay jirtay bay tiri, la sheekaysan jirtay duruuf iyo waxay tiraahday waxay ka sheegan jirtay guri la-aan ayay ka sheegan jirtay bay tiraahday. waxay tiraahday walaashii ayaa waxay ku tiraahday carafaa soo dhow ee maalinta carafo ilaahay subxaana watacaala weydiiso inuu dhibtaa kaa bixiyo, gurina waad helaysaa. say tiraahday gabadhii anoon lacag haysan see guri u dhisanayaa bata guri u helayaa. ma runbaabay tiraahday maalinkaas in la helo wax. waxay tiri maalinkaa ilaahay u tag, waa maalin ducadu mustajaabo tahay ee ilaahay u tag. markaasi waxay tiraahday see ku helayaa, adiga dood dheer kadib gabadhii waa ka dhaadhicina bay tiri. sidii bayna gabadhii ku ducaysatay, gurigiina way heshay, duruuftiina way ka baxday gabadhii alxamdulilah. waxba ilaahay subxana watacaala kuma cusla. walaalayaa dad badan baa barnaamijyada ka dhaadhacsay, aniga xataa waa iisoo qoraan. walaalaha qaaliga ah ilaaha raxmaanka raxiimka ayaa awood iska leh, adiga wax awooda male, waxba ma samaysan karin. haddaa wax samaysan kartid maanta wax walba waad samaysan lahayd ma fahanti. marka ilaaha raxmaanka raxiimka uta ilahay wuxuu dhaha ibarya waa idinka ajiibaya. ilahay wuxuu rabaa in loo tago gacmaha loo horsado. xadiistan waxaa kusoo aroor inay ducadu qadarta ka hortagto, xataa haddii markii hore lagu qoray inaan waxaas aada helayn, haddaad ducaysatay ilaah raxmaan raxiim weeye, xayiul kariim ilaahay weeye, addoomihiisa uu ka xishadooday gacmaha u horsadaan inuu ayagoo maran kusoo celiyo. marka walaalaha waxaa ka dhaadhacsan yihiin iimaankiina qawi ka dhiga, ilaahay baa awoodan koomkaa maamula, ilaahay subxana wataala noloshaada kaa og, ilaahay baa ku abuurtay adiga, waalidka ilaahay baa abuurtay, koomkaan oo dhan ilaahay baa abuuray. ilaaha raxmaanka raxiimka ayaa ku irsaaqi karaa oo kun faya kun kuu dhigi kara wax walba u baahan tahay, weliba wax kastoo is leedahay xaggaaga mustaxiil bay ka yihiin. ilaaha raxmaanka raxiimka waxba lama ahan, ma fahanteen walaalayaal. marka ilaahay aan tagno walaalaha qaaliga. qisadan walaalayaa iyadana gabar baa ka sheekaysay. gabadhan waxay tiraahday nin baan jeclaa bay tiri, jacayl waali ah oo noloshii waxay tiraa ila qaybsaday. waxay tiraahday wax walbana ila qaybsaday oo wax walbana waxay tiraan wadi waayey. waxaan go'aansaday bay tiri maalinkii carafo inaan ducaysto. waxaan ku ducaystay bay tiri ilaahay subxana wataala ninkaa iga madoobeeyo, ninkaas oo waxay tiri qalbiga iga saaro. maalinkii carafo aad baa ilaahay ugu tagay oo u ducaystay. alxamdulilah wuu iga aqbalay bay tiri, ninkii wuu iga madoobaaday bay tiri, wuu iga baxay qalbigaygii. alxamdulilah noloshaydii horumar badan baa aan sameeyey bay tiri, waxbarashadii waa dhameeyey, qalbigaygii dhaawac ilaahay igama gaarsiin, qalbigu ii kamay. alxamdulilah noloshaydii waxay tiri guulo waaweyn baan gaaray bay tiri. awalna waxay tiri waxyaalahaas oo dhan ma samayn karin, waxay tiri jacaylka i hayay mid waali abuu ahaa bay tiri, jacaylkaas lama dhihi karay tiri, jacayl waali abuu ahaa bay tiri. marka maasha allah ka faa'iidaysta walaalaha qaar. qisadan ayadana walaalayaal gabar baa ka sheekaysay. gabadha waxay tiraahday maalinkii carafo waxaan ku ducaystay bay tiri, reerkayagu waxay ahaayeen bay tiri reer isdagaala, markaste iscaaya. gurigayagu wuxuu ahaa bay tiri guri dagaal cay laishiifaya buu ahaa bay tiri. hooyaday aabbahay baa isdilaya, isku qaylinaya, walaalahay rag wiilal iyo gabdhaba way isdilayaan bay tiri. gurigayagu waxay tiraahday guri aad u dhib badan buu ahaa bay tiri. gurigii waa lagu kala tegay bay tiraahday, walaalkaygii weynaa wuu tegay, aabbahay wuu ka tegay, guriguu ka cararay. waxay tiri gurigayagu waxay tiraahday guri laga cararo noqday bay tiri oo dhib ah. waxaa maalintaas anigana qalbigan waa ka dareemayay bay tiri dhibtaas. maalinkaasaan waxaan go'aansaday bay tiri inaan ilaahay carafo aan ilaahay weydiisto, inuu ilaahay subxaanahu watacaala reerkayaga aan u duceeyo iyo anigaba in ilaahay subxaana watacaala isku kaaya soo celiyo, ilaahay subxaana qulubtayda mideeyo oo dhibta naga dhex qaado ilaahay subxaana watacaala. alxamdulilah waxay tiraahday ilaahay wuu i aqbalay bay tiri ducadii carafo. carafadii markay dhammaatay waxaa soo laabtay bay tiri walaalkaygii weynaa, aabbahay baa soo laabtay, wiilkaygii weynaabaa maalin isugu kaa yeeray dhammaantayo. wiilkiibaa noo khudbeeyay bay tiraahday inaan iscafino, dhibta guriga laga daayo, maxaasha aan la isdagaali. waxay tiri waa wiilkii
ugu dhibto badnaa bay tiri dadka la dagaali jiray ilaahay baa bedelay bay tiri alxamdulilah reerkaygii waxay tiraahday farxad maanta jacayl baa ku wada noolnahay ilaaha raxmaanka raxiimka ayaa mahadda iskale maasha allah walaalaha qaaligaa qisaskii maalinta carafo aan soo diyaariy intaasay ku egyihiin ha laga faa'iidaysta walaalaha qaaliga ah qisooyinka maalinta carafo waxaa beri oo jimcaha waxaa soo gelinaya qisaskii saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinta sabtidaana walaalayaal waxaa weeye maalinta carafo marka insha allah waxaa isku dayayaa beri inaan kasoo hadlo yowm naxar fadaaishay leedahay iyo maxay sheegay qisaskii maxay sheegay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka dambeeya walaalayaal maalinta carafo waa maalin duco dikriga la akhrisanaya waa idin sheegay maasha allah ducooyinkiina qortaa maalinta carafo aad iyo ha loo dadaalo walaalayaal maalmaha ka horeeya ha la iska dhammaystiro shaqada oo dhan masaajidka ha la galo guryaha la soo xirto ilaah raxmaanka raxiimka u tag maxay sheegay qoro qalin iyo bug intaa soo qaadatid ama taleefankaa ku qoro ducooyinka aad rabtid ilaahi subxaana inuu kuu rumeeyo ducooyinkana badsada walaalayaal islaamkana u duceeya walaalaha reer qasa reer falastiinna u ducayno wakaas walaali khayr iyo farxad iyo bishaarooyin iyo farxado ayaa idin rajeynaya dhammaanteen walaa anigana ii soo duceeya ana waa idiin soo duceynaya maasha allah khayr iyo farxad walaali wixii aan khalday naftayda shaydaan bay ka ahaadeen wixii aan saxayna fa min allah wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu